waxaan idiin soo gudbinaynaa qofka ugu xoolo badan dunida, qofka shanaad ee ugu xoolaha badan dunida. magaciisu waa Amancio Ortega, wuxuu ka soo jeedaa dalka Spain, wuxuuna haystaa 64.5 bilyan. qofka afraad ee ugu xoolaha badan dunida, magaciisu waa Warren Buffett, Mareykanka ayuu ka soo jeedaa, 72.7 bilyan ayuu haystaa. qofka saddexaad ee ugu xoolaha badan dunida, magaciisu waa Carlos Slim Hello, Mexico ayuu ka soo jeedaa, 77.1 bilyan ayuu haystaa. qofka labaad ee ugu xoolaha badan dunida, magaciisu waa Bill Gates, USA ama Mareykanka ayuu ka soo jeedaa, 79.2 bilyan ayuu haystaa. mataqaan qofka koowaad ee ugu xoolaha badan dunida? waa qofka Allah subhanahu wa ta'ala haleelsiiyo tukashada labada ragcadood ee sunnada ah ee ka horeeya salaada fajr. labada ragcadood ee sunnada ah ee ka horeeya salaada fajr baa ka khayr badan dunida iyo waxa dusheeda ah, sida uu yiri Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. waa walaalkiin Axmed Xujaale oo idin leh u degdega khayrka. fadlan sii faafi fariintan oo gaarsii walaalahaaga. جزاك الله خيرا.